dhalinyarada iyo aqoon-yahankan oo ka mid a taageerayaasha xisbiga kulmiye oo kulan warbaahineed ku qabtay hoteelka daale ee magaalada burco waxay soo dhoweeyeen islamarkaasina taageereen shirweynaha afraad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waxaana sidoo kale ay ka digeen xubno ay sheegeen inay qas ka dhex wadaan xisbigaasi ugu horeyn waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay cabdiladiif ismaaciil xaaji muuse naasir aadan siciid jaamac cabdilaahi iyo cabdilaahi maxamuud cali kildhi iyagoo arrimahaasi iyo arrimo kaleba ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ahaa hadalladoodii sida tan xisbiga kulmiyana sidaynu ognahay waa xisbi qaran ah shirka golaha dhexe waxay tahay aragtideeda ku aadan haddii aanu nahay dhalinyarada xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer waxaan u aragnaa in ay tahay mid loo soo agaasimay oo loo soo qorsheeyey hannaan siyaasiya cadliya ay ku saabsan tahay xisbigana uma cusba oo uma aha in uu galo shirar golo dhexe ama se doorasho muddooyinkii dambe social media ku jiray rag siyaasiyiina oo ka mid ahaa xisbiga oo inama muddo fara badan u soo shaqaynayey oo heerar kala duwan soo maray oo muddooyinkii u dambeeyey xukuumadda ka horreysay ee Axmed Siilaanyo 7 sano oo consecutive oo xidhiidha ka ahaa golaha wasiirada ku jiray ay social media soo marinayeen inaanay ku kalsoonayn sida wax loo wado waxaan leeyahay ciyaar waa la tumi jiray caguyeedu jabin de siyaasaddu simbirrixooyin fara badan bay leedahay oo rafad fara badan bay leedahay ninka uu haysta ilaa iyo maalinta uu soo galo inuu 20 sano ama 30 sano consecutive u durduro ku jiirayo caalamka ma dhicin oo arkayeen siyaasiyiintii qiimaha iyo qadarinta kulaha dalkan reer Somaliland inay qaarkood doorashooyin ku dhaceen oo ay ku waayeen cod aad u yar oo 80 waliba waxay haayeen aabayaashii xisbigan ee inankan siyaasadiisa soo gardaadiyay oo soo baray marka ninkuna haddaanu macallinkiisa siyaasadda ka dhaxlin oo wax ka baranin de wuxuu noqonayaa nin macaamada iska fadhiyo aan macallinka cilmiga si fiican uga wada qaadan oo waanu ka ilaalinanaa nabar kasta iyo simbiriirxa kasta oo soo gaadha xisbiga kulmiye waayo dadka waan uga lexla jecel badan oo waanagii sheegnay inaanu nahay hooyaduna qofka ay uurka ku qaada ee gardaadiso ee caanaheeda siiso ee naaskeeda jaqo dadka kale ee dhawaan baradka ama qarqarka soo qabsaday way uga lexla jecel badan hadii ay ashqaas iyo 2 iyo 3 isiraadaan mijaxaabiya xisbiga kulmiye ma aha mid jalaafo lala heli karo xisbiga kulmiye waayo uu ka korreeyay marka waxaan leeyahay fi'adanna wargagida isku caataynin nin canooray ama hankiis u soo toobi waayay ma aha mid u dhitinaya aqbali kara soo siyaasaddu in 2 nin mar la soo wada qaato oo waxaan ognahay in siyaasiyiin fara badan oo miisaan iyo mug fara badan leh oo iyo sumcad iyo taariikh siyaasadeed dalka ku leh ay u suurtoobi weyday hankoodii madaxweynenimo ama se inay dalka kan hogaamiyaan waqtigu ku sibi waayay sida daraadeed ay gudoonsadeen inay hankoodii aburiyaan ku qancaan iyagoo u tanaasulaya ummadda iyo dastuurka iyo amniga iyo wax wada lahaanshaha iyo jiilasha ka dambeeya ee soo koraya ee u imanaya garoon ay kubadda ku ciyaari karaan siyaasadeed waxaan leeyahay arrimaha dastuuriga xisbiga ama xeerarka lagu xaliyo ma aha in lagu soo dhaco dadka shacabka ama caamada ama taageerayaasha caamada oo inta madaxa marada lagu marto dhexda marada lagu xilto la yiraahdo tolaayay waxa leeyahay arrinkaasi waa arrin ku kooban xisbiga xeerkiini idin dhaqanka haba ku kala baxsan maanta halkan waxaan ku qabanaynaa bayaan aanu muujinayno shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye iyo guddida qabanqaabada ee hawsha wada siday wax u wadaan iyo nidaamka ay wax u diyaarinayaan aad baan u bogaadinaynaa aad baan u taageersanahay waxaan u aragnaa inuu yahay qaab aad u qurux badan oo looga soo shaqeeyay oo laga baaraan degay oo la saxar tiray shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye waxaa ka horeeyay 3 shirweyne sidii ugu quruxda badnayd ee ay u hirgelayeen
ee loo qabanayay ee ummadana la isugu wadi karayay ayay u soo dhammaadeen kana tabtaasuun buu noqonayaa insha Allah waa xisbi gaamuray waa xisbi siyaasiyiintii Soomaaliland iyo haldoorkii Soomaaliland ay isugu yimaadeen dadkan meelaha miidiyaha ka hadlaya ee dhalinyarada u badan dhalinyaradu waa u bixi ummadda maaha inay sidan maanta u hadlayaan loogama fadhiyin waxa la doonayo ummaddan inay jiheeyaan inay siyaasiyiinta kala saaraan oo ay halka saxda ee xaqa ah marsiyaan maalinba nin calooday in lala caloodo ma qurux badna midda kale waxaan u sheegayaa xisbiga kulmiye xaruntiisu magaalada Burco halkii lagaga aasaasay halka ka soo shidaal qaato maalin kastaba Burcana waa in istaqaana cid xisbiga kulmiye u soo shaqeyn jirtay ee u soo kaambeyn gareyn jirtay ee bulshadana la hadli jirtay dadkan meelaha ka hadlaya ee waxay doonaan sheeganaya ma aha in wuxuu doonano qofku sheegto laga qurux badan maan arag anugu mana garanay dhalinyaradan meelaha ka hadlaysa meelay kulmiye ku ahaan jireen iyo meelay ugu shaqeyn jireen hadaanay adeeradood markay meelaha xukuumadda wax ka hayeen aanay soo raaci jirin oo dadka wadida aanay u saarnayn oo ma garanay meelay kulmiye ugu shaqeyn jireen iyo meelay ka ahaan jireen halkan fariinta aan ka diraya laba qodob bay noqonaysaa kow inaanu xisbiga si mug leh shirweynihiisa dhici doona aanu u taageersanahay hadaan nahay dhalinyarada iyo haldoorka gobolka Togdheer qodobka labaadna waxa weeye xisbiga gudihiisa iyo khilaafaadka siyaasiga ee xisbiga gudihiisa ka dhaca waxa qurux badan in gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaayay si hoose oo xisbiga gudihiisa isagaan xayndaabkiisa laga baxaynin la dhameeyo oo la hoos loogu gondadaadigo xisbiga kulmiye waa xisbi jira waa xisbi qaran waa xisbi sii jiri doona waxa la hangaraara marka lagu madatiyo waa Maxamed Mataan Gabalaax Sahan TV Burco.